waxaa la yeerin doonaa wiishkii ama gambaleelkii shaqaalaha ee warshadan muddadii ay jirtay 1970 kii bishii lixaad shaqadan soo galay 1970 bishii lixaad ilaa ma haddana waa joogaa inaan xusiisano hadaada warshaddii annagu ilmahanagu ku dhasheen annagu aan ku mushaar qaadanay dandaradaydu isagoo na dhibaya markaan kaaga sheekeeyo bilowgii hore arinta intaay gaari lama walahayn waxa la filayay in adiga marka isla markaas inay wax iska howlkan isbedeli lahayd kuwani waa shaqaalaha warshadda dharka iyo suufka ee Balcad iyagoo intan ka tiro badan oo dhalinyaro ah ayay ka shaqo bilaabeen halkan iminka oo ay howlgab ku dhow yihiin 30 sanadood ayaa laga joogaa markii ugu dambeysay oo ay xaquuq qaataan waana goortii ay dhacday dawladdii militarigu hogaaminayay Soomaalikaas waxaan ahayn dad shaqaalaha oo mushaar qaata oo lacag badan oo gurno la yiraahdo wax badan oo qaaliy dawladdii markay dawladdii mugay dhacday min mushaar 3 meel bishii qaalahay oo waay horta dareenkiisna waa dareem karaa wixii ka dambeeyana noloshaan waxay ahayd marba meel ay soo mareedo hoos u soo dhacay xoogaan wax ku keen wax dawla ama nasiib ama dad kale ugu taakulay midna ma arag mushaarkood haan overteen intaas aan ku qaadahay 2,000 qofood amal aan ka shaqay jirtay annaga ku suurna dadka meesha daruufatii daruufta wala kala baxay dad waa iska tageen daruufa ka waday dadna wuxuu ahay waa ka daneysteen kasa soo hirtay kas xogaa soo hirtay tooyay soo hirtay waxa la yasaayalna ma ka kala tagnaa ma celina ma joogna axdii galeen axdii waxay galeen haddaan wax nala siin iyo haddaan wax weyn أنا كأنشقي سنة بالك أسوأ شقي سنة لما بير هذا أسوأ شقي سنة هذا أسكو بدلنا نو البابا مارك تأو يعني يسوي حول عنه لهاي نصوم مالست لكن لا يسكو أوجادو أساس الوجوه سيدي الوجوه waxay si wada jir uga soo horjeesteen boobkii lagu hayay hantidii qaranka xilli jabhadihii iyo qulqulatooyinkuba ay doonayeen inay bililiqaystaan qalabka warshadda intii waxgaradka ahayd ayaa isku dhaarsaday inaan warshadda cidla looga tagin ilaa laga helayo dawlad awood leh oo dib u howlgelisa axdigaas ayayna kaga soo gudbeen waayihii burburka marka ku baahnaysan warshaddan waxa soo galay qoladii mantaqana jabhadaha ahayd إن أفر بري أي فرنيد أي متقنا أبتدي وحده جديد على الدلالة هاي مركز كبعد دد كم إذا شقالها وشدة وأنواع كم إذا هاي أي نسكن نمد وحنا وعنسية لما بعدين كرنا مركز رج بقول يصد أنا أي أبابش وحيث أبابش شيء إن محاها ورشدي بالغضاء لقى اليوم markaas wala bilaqaysto dharkii iyo wixii dhaxyiilay wixii wala qaad laakiin mashiibkii iyo bari wixii mihiil dhismadii inaan celino taas waxay noqotay inaan mutaqaana ciidankii soconayay oo jabhadaha aan 12 qofood amalaan ka qabanay waan mutaqaana dadka ka laga soo saaray warshada in marka bacdina mutaqaana wixii ka soo baxaan aan aragnay dadkaas nala shaqo galay warshadii baa dadkii laga soo saaray متقنا بيلقيسن هي laga soo saaray albaabadeedii baan xirnay markii laga kala yaacay waxa isku soo hirtay intii oo aqoon u lahayd warshad wax tarkeedana ogaa waxa la yiri maadaama ay mashadan warshadana ay tahay hadhow marka 20 jira la ahaa balse ubadkayda dab waxbay u tari doontaa
deegaankan oo dhan waxbay heli doonaan warshadii aan xooga saarno ragaa la helay matoorada ayaa weli shaqaynaya waxaana makiinaduhu awood u leeyihiin inay wax soo saaraan duntii looga tegay markii burbur ku dhacay ayaa weli suran ilkaha irbadaha dharka sameeya qaybta alindiga way waxa taalo 154 mashiinaad taal oo 20 ay tahay kaaki 10 ay tahay doob mashiin 2 mashiin ay tahay shukumaan halka waaweyn halka yar kadib waxa loo maskishin ka soo sida la doon ayaa wax lagu sameeysan karaa kaaki ay goonigiis waa 20 mahab way halaha kale alindiga way alindigaas jacfaan jawaano waxa lagu sameyn karin male kii aan ugu talagashay ka dhigi kartaa marka hadda mashiinka sida oo kacel haya ku tusiyaa dunta sida loo geliyaa ku tusiyaa intaas hay la socayaan waqti kubad inta la geliyaa miiqan inta soo bixina kana ka soo dhaxqaasinaysa miiqan dulkan geliyay tid wada gashay waa kan daxaltirka qalabka kululaynta matoorada nadaafadda iyo sugidda amniga warshadda waa shaqadooda maalinlaha ah oo marba kooxi ay qabato halka kuwa kalena ay qabsadaan hawlaha ay ku dabiraan nolosha qoysaskooda maadaama uusan wax dhaqaale ah halkan ka soo gelin beeru iska waato iska waxaystay annagoo beeraha dad qaar kan jibaal soo fasho meel ganacsi ku waxaysan yahay aan wax dantan u kaliftay meeshaan inaan cidlay waati kuudi ilaa ma hadda hal bir faarq mano anagoo inta cunay jikana loo korinay raashina la siiyeen waxaan qaatana lahayd aan soo marnay waqti badan waxaana weli arag wax adugu leh daryeel warnimankaas yaa ka warqaba yaa u maqan waa xoolo qaran waxay hayaan oo waliyaa og dowladaha intayna soo martana waa ognahay haddana waxna warsada oo leh sidaanay tahay iyo bal ka warrana saaka idinkoo dhalinyaraha noo fadhiyaan uga jeednaa marka waa u baahnay gunayana isaga baahnay hataa wax kale hadaan weyno hay'adda hataa si maal geliso oo warshadiisii ilaaliso dadkan dad tababar iyo galaan way hadaan kadib wax joogo marka dhibaatadaas jirto sidaasaan ku joognaa ilaa iminka inta noolnaha waxaan rajo ka qabnaa inaan uun sii ilaalino waxaan uga tegi waynay oo noloshayna inaan dabarano ayadana ayn ilaalino damiirkayna wuxuu nagu sii waayay dadkaan ilmo ku dhalnay oo intaas ku soo kornay oo halaas aan soo joognay inaan magacila uga tagno halkani waa qaybta wax soo saarka warshada suufka iyo dharka ee degmada Balcad taasi oo 2,000 oo qof ay ka shaqeynayeen ka hor burburkii oo dawladda militariga ay shaqeynaysay 100 qof ayaa ka shaqeeyay in la badbaadiyo kuwaasi oo qayb ka ahaa barnaamijkii looga soo horjeeday boobka hantida dadweynaha waxaana xilligan ku sugan 30 kamid ah kuwaasi oo doonaya in dawladdu kala wareegto si mar kale loogu adeego isla markaana ay dhar u soo saarto maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka warshada Balcad gobolka Shabeellaha Dhexe